سجية وسيرك قاشانك دولة فدرال كاي سوماليا جنرال عبد القادر الشيخ علي الديني وكم ده وفد رئيس الوزراء يقصدون واشنطن أيها عاوة قولها مرتي إنه كواه قولها فلقينتا ما سياسة الصومالية أنا سويا لا يا كوريسان دونا وسير كسر وقولها أدبنا كلام عنا كأن وقت قالي كأن نسيس أنه أقصد أدلنا تهاي يولي بشرك أتكون جدي كسر وقولها وسير وما سنتين وسير أدبنا ما سنت هاي مرلبات أدبنا كلام عنا كأن بل واحد كل واحد كتب بين دلكي baad ka timaadeen bal warbixin kooban naga sii xaaladda ammaan ee dalka iyo hawlaha ka socdayba aad baad u mahadsantahay horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad muxuu ahaa igu soo martiqaadaan golaha 88 MJJ iyo MJ iyo JJ iyo Soyaal dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo halkan maqlaysa oo aan filayo dhamaantood inay dibadda ku nool yihiin way salaaman yihiin aad iyo aad baan inay salaamayaa salaan diiran salaan ka bacdi su'aashaada haddaan ka jawaabo wadankii muxuu ahaato aad iyo aad buu runtii muxuu ahaato u fiican yahay dhinac markii laga fiiriyo dhinac kale markii laga fiiriyo aad iyo aad baysan ummadda Soomaaliyeed runtii inkastoo ay u diyaar tahay in ay muxuu ahaato wax qabsato kana tashato aayaheeda haddana waa jiraan dhibaatooyin muxuu ahaato badan oo ka jira oo ku saabsan ummadda Soomaaliyeed weli aad moodid inaysan guud ahaanteed ama banaanka ha joogto ama gudaha joogto inaysan u guntanin dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan gaar ahaan aan aad iyo aad runtii aan ugu guubaabin lahaa ama ugu dhaliilahayo dadka banaanka ku nool oo aan leeyahay fursad fiican bay u haystaan siday dalkooda u badbaadin lahaayeen oo uga badbaadin lahaayeen dhibaatada haysata oo runtii hadda inkastoo dadku dadaalay oo la dadaalay dawlad ahaan iyo shacbi ahaanba ay dadaaleen haddana waa garan kartaan dal burburay oo muxuu ahaato aad iyo aad ay ugu dhacday dhinac kasta burbur xagga maskaxda ah iyo xagga kaleeto oo ah dhibaatooyinka kaleeto si usoo kabto inay dhaqso u adag tahay laakiin waxaan isleeyahay runtii hadda meel fiican bay maraysaa haddii halkaas si fiican looga sii wado si wada jir ah cod iyo calafba si wada jir ah haddii muxuu aha arrintaas loo qabto oo garbaha la isla qabto meel ayay kasoo bixi kartaa laakiin markaan runtii inii sheego ummadda Soomaaliyeed oo dhegeysanaysa halkan gaar ahaan barta 88 waxaan ku guubaabin lahaa ama kula talin lahaa in ay dalkooda xag ha noqoto dhaqaale xag siyaasad iyo xag horumarba inay ka qayb qaataan oo aysan ninna ku halaynin haddaan xasuusiyo waxaad moodaa in influencigii ay ku yeesheen waagii xornimo doonkii gaar ahaan waqtigii Cabdullaahi Ciise iyo ay soo muxuu ahaato ay imaanayeen New York waxaa jirtay muxuu dhalinyaro markaas runtii oo ahaa siimaano ahaa oo joogay New York influencigii ay ku sameeyeen ama impactigii ay ku sameeyeen wafdigii markaas uu watay Cabdullaahi Ciise waxaad moodaa oo ayagoo yar oo weliba dadka aqoonta la ku yaraayeen oo dad iska xamaalata u badnaayeen influence ay ku sameeyeen wafdigii oo markaas kala socday midnimadiisa in la mideeyo oo hal cod ay yeeshaan muxuu ahaato iyo raggeena ama dadkeena gabdho iyo wiilalba banaanka ku nool oo ah kumaanka kun waxaan isleeyahay dhalinyaradaas waqtigaas joogtay muxuu ahaa late 40s waxaan isleeyahay baa ka influence badnaa muxuu ahaa influenceka ay ku leeyihiin maanta dhalinyarada ama dadka banaanka jooga oo loo baahan yahay in ay gacan siiyaan runtii taas waxa waa guubaabo intaasay iga tahay waxaan leeyahay nina dhulkayni kama leh markasta meel kasta aad joogto Soomaali baa tahay ama qurbo ku noolo ama meel kale joogba
magacaasna maanta wuxuu marayaa meel aada iyo aad markaad meelaha iyo garoomada iyo meel kastaba tagto aada marto dad dhibaataysan ama aada arkaysaan xeebaha maalin kastaba meydkooda laga soo gurahayo iyagoo dalkooda misena uu barwaaqo yahay laakiin uu ammaan awgiis amase dadkoo aan weli muxuu ahaa guddoonsan dalkooda inay waxaas ka saaraan awgeed baa dhalinyaradaas yararkaa ama waxbaratay ama xoogoodii iyo aqoontoodii iyo maskaxdoodii intaba ay meel cidlaa ku burburtay ama kuwa wadanka gudihiisa ku jira ha noqdeen ama kuwaas dhibaatada ku dhacdayba ha noqdeen wadanka khayraadkuna ka buuxo marka waxaan leeyahay mar kastaba waxaan idinku guwaabinayaa nina kaama laha wadanka ninaad ku dhowrtana ma jirto haddaadan heli karin calaf haddaadan heli karin cod baad heli kartaa waxaad ka ilaalin kartaa meel aada codkaaga ku muujin karto oo ah haddii dad u geysanayo ama dawlado kale wax u geysanhayaan ama dad dhibaateynayo waa meel aad codkiina ku muujin kartaan runtii maanta fursadda aan haysano oo haddii soomaali weyn dadkeeda banaanka ku nool ay gacan siiyaan si sahla aan isleenahay ama si fudud baa wax weyn looga qaban karaa dad badan ba xataa waxaa dhici karta in aysan ka qayb qaadan in wadanka horumarkiisa laakiin ay ka qayb qaataan inay wadanka dhibaateeyaan marka xataa haddaadan markaas aadan ka qayb qaadanaynin waxay ku habboon tahay oo ku wanaagsan tahay dadka dhibka haysta inaan dhib kale loogu darin oo runtii ayagaaba iska dhibaataysan laakiin waxaan leeyahay inaan rajada ama hoobka ay leeyihiin inaan laga qaadin laakiin adinku u noqotaan rajadii iyo hoobkii ilaahay ka sokow muxuu ahaayta ay fiirsanayeen oo codkiina iyo taageeradiina markastaba ay u baahan yihiin oo anaku maadaama dadka ammaanka ka shaqeeya aan nahay oo u baahannahay codkiina iyo taageeradiina iyo gacansiintiina intaba oo midaysan oo aan kala qaybsanayn marka anaku waa dadaali doonaa shacabka soomaaliyeed oo meesha waxgaradka ah ama intiisama jecelaba way dadaaleysaa waxaan un dhibka ku haya waa un dhalinyaradaas la khalday fikrad ahaan la khalday muxuu ahaayeto runtii inay dalkooda burburiyaan ma ogiye aysan meelna aysan muxuu ahaayeto inta meelahay hayeen oo dhan meel waxay dhiseen ama ay isku dayeen inay wax dhisaan ama wax horumara aysan marnaba isku dayin oo ay noqoto meel kastoo ay ka talinayaan meel cabur iyo dadka in cabsi in uu ku noolaado cabsina lagu xukumo marka un qofkuna unasan lahayn doorasho ama waxa weeye waa ku dilahayaa ama waad raacaysaa ama muxuu ahayeto xoolahaaga iyo dadkaaga iyo waxoo lamidna nabadgelyo marna ma ahan haddaadan anigu waxaan rabo ama waxaan doonaya aadan yeelin marka guud ahaan waxa weeye waa ballaaranta ayaana waktiga ina kaga qaadin wadanku waa muxuu ahaato rajadiisu maalinba maalin bay soo mareysaa meel bay soo mareysay haddana maanta meel fiican bay mareysaa markii la dhinac dhigo waqtiyadii iyo waayihii hore oo lasoo maray ma ina lihi mataqaanaa wax kastaba waa perfect laakiin rajada iyo ididiilada laga qabo ummadda soomaaliyeed inay midnimadeedii iyo dadnimadeedii iyo sharafteedii inay soo ceshato waxa weeye aada iyo aad bay uga fiican tahay waqtiyoodii hore oo lasoo maray marka idinkuna inaad ka qayb qaadataan waan ku aadinahay aad baa umahadsantihin aad baad umahadsan tahay wasiir koleyn soomaaliya 25 sano hadda burburka ay ku jidhay waxa ay ka dhiman weyday waxa la yiraahdaa waa dadka qurbaha waana qaadanaynaa dhaliisha dadka qurbaha usoo jeedisay laakiin wasiirada xukuumadaha hadday noqon lahayd dowlad goboleedyada hadday noqon lahayd xukuumadda hadda aad ku jidho waxa u badan waa dadkii qurbaha ka tegay baarlamaanada dhaqaalaha ugu badan soomaaliya ay hadda ku tirsan tahayna waxa looga diraa kolley waa dadkan dibadaha dira maalgelinta weliba mashaariicda horumarineed ee gudaha ka socotana inta badanna iyaga ayaa maalgeliya wixii hadda dhaliila ee ka dhimana kolley way qaadan doonaan way ku maqlayaan laakiin waxaan filayaa in ay intii looga baahnaaba ay geystaan aad baad umahadsan tahay wasiir kolley safar dhowr cisho ah baad ku joogtay dalka Mareykanka
maxaa safarkiina uu ku saabsanaa hawlihii aad u timaadeen maxaase inay ka qabsoomay? wallahi si aad ogsoon tahay safarkan safarkii ugu horreeyey oo dad Soomaaliya ama madax Soomaaliya ay timaado ma ahan. hore madaxweynuhu u yimid hore delegation badan u yimaadeen. waxaana naga dhaxeeya xiriir aad iyo aad u wanaagsan oo dhinac kastaba ah, ha noqoto xag dhaqaale, ha noqoto xag siyaasadeed, ama ha noqoto xag ammaan. waxayna ku saabsaneen arrimahaas oo dhan arrimo la xiriira ayay ahayd wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dawladood, iyo in la isweydaarsado mar kastaba muxuu ahaa wafuudda. ma ahan halkan keliya Washington in la yimid, waad ogsoon tahay maalmahan dambe oo dhan in wafuud isdaba jooga oo dawladda Mareykanka ka socda inay yimaadeen. wasiirkooda arrimaha dibadda inuu yimid, Kerry inuu yimid, wasiirka xogeenadooda inay yimaadeen, mataqaanaa secretary-yaalka ku-xigeenka indadiis inay yimaadeen. marka waa isdhaafsigaas xagga muxuu ahaa ku saabsan wada shaqaynta iyo iskaashiga dhinac walbaba oo baanu u nimid. waana sii socon doontaa haddii aan leedno in wafdigii ugu horreeyana ma nihin, wafdigii ugu dambeeyana ma noqon doono. saasuu isdaba joog u noqon doona. hawlihii aan u nimidna dhammaan si wanaagsan ama aragti midaysan ayaanu ka lahayn oo aad iyo aad u wanaagsan. welina waa socotaa aragtidii aanu arkaynay dawladda meelihii aan islahayn inaad aragtaan baa ubaahantiin. aad baad umahadsan tahay wasiir. sadeen ku noqono Soomaaliya sida muddooyinkanba soo baxayay, ama wasiir wasaare ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto, waxaa aad sheegayseen in kooxda al-shabaab ee xag jirka ee ka dagaalama Soomaaliya aad jediseen oo awoodoodii ay yaraatay. muddo badan baad saad lahaydeen, haddana intaa dhibaatooyin bay geysanayaan. maxaa hortaagan in la cirib tiro ama tallaabo adag aad ka qaadaan oo aad maaragtay ka saadhaan inta harsan ee aad tirahdaan 20% way ku hareen? aad iyo aad baa umahadsan tahay su-aashaas. waxa weeye runtii sidaad ogsoon tahayba dagaalo qarsoon ama dagaalo aan muxuu ahaato isdaba jooga ayay ku hayeen dhalinyaradaas wadanka. waana garan kartaa meeshii laga soo bilaabay iyo meelihii ay joogeen iyo inta dhul muxuu ahaato laga qabtay. hadda inta hartana waxaa lagu tala jiraa in sidoo kaleeto iyadoo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba iskaashanaya in wax laga qabto dhalinyaradaasna intooda kaleeto oo hadda meelaha ku hartay ama dhibaatooyinka ku jira in looga digo oo ay ka baxaan marin habaabintii. cafis badanna waa loo fidiyey. qofkii ka qayb qaadan waaya cafiskaasna sida kuwa badan oo ay uga qayb qaateen, haddeed ummadda Soomaaliyeed waa iska qabanaysaa muxuu ahaayeeto iyadoo ciidamada amniga iyo shacbigu iskaashanayaan. marka lama dhihi karo hadda waa la sifeeyey iyo lama sifeyn kuma dhahayo, laakiin haddii muxuu ahaato nabaddiidnimadu ay saas inay nabaddiidaan ay saa ugu soo socoto bardow ma masaabaxayno anakuna. shacbiga Soomaaliyeedna ma masaabaxi doono ninkii saas uga hor yimaada. oo fursad waa la siiyey. ummadda Soomaaliyeed dad wanaagsan weeye oo iska cafisa dadkii dambiyada ka galo kaleeto ayagoo danta guud ka eegaya. marka waxa dhimana bardow shaqadooda waa lagu tala jiraa, ayaguna waa u yihiin in lagu tala jiro. wixii muxuu ahaayeeto aan ka qayb qaadanin in ay ka tanaasulaan dhibka ay wadaan. marka meelo badan sida adduunka waxa weeye dadka dhuumaaleysta ama dhuumanhaya ama wixii lamid ah way dhuumanhayaan ilaa waqti way dhuumanhayaan, laakiin ilaa intee bay dhuuman karaan weye, ilaa intee bay dhuuman karaan. marka waxaan filahayaa ummadda Soomaaliyeed inay waxaas ka gudubtay inay uhanqal taagaan nimankaas nabadiidka oo dhibaateynhaya. waxaana waa waqti bay ordi karaan, laakiin qof la dilay iyo dad la qarxiyey iyo ummadda Soomaaliyeed intaas ugama hakan doonto masiirkeeda ugama hakan doonto. marka waxaan rajeynayaa inaan aysan kuwaasuna waqti iska qaadin. muxuu ahaayeto anakuna shaqadayada anakoo shacabka ayaa kaashanayna waa ka qabsan doonaa waajibaadka naga saaran ummadda Soomaaliyeed in ammaankeeda la xasiliyo lagana celiyo dadka dhibaatada kusoo wada iyo burburka.
wasiir aad waa mahadsantahay sida la socoto dalka yemen hadda burburay oo dawladii dhexe ay meesha ka baxday waxaa xarumo saldhigyo ku lahaa kooxaha ugu khatarsan argagixisada caalamka dalka soomaaliyana waa dal furan maxay tahay welwelka ayna ku hayso ma jiraase qorshe aad kaga hortegaysaan kooxahaasi inaysan dalka dib u soo gelin runtii waa run saad sheegayso ama dareenka aada muujinayso annagana dareenkaas oo kale waa qabnaa kooxahaas waad ogsoon tahay sida ay bariga dhexe oo aan xiriir leenahay dhaqan ahaan iyo diin ahaan siday ugu baahsan yihiin waa garan kartaa iyo hawlaha ay ka wadaan sidoo kaleeto waa wax la fili karo inay dhinacaan oo kaleeto sidoo kaleeto ay isku dayaan ayagoo ama ha kasoo carareen ama ha ka faa'idaysteen fursaddan ha ka faa'idaysteen inay isku dayaan dhinacaan hase ahaatee ummadda soomaaliyeed diyaar bay u tahay waad ogsoon tahay inkastoo xeebaha iyadu furan yihiin haddana meelaha ugu habboon oo ilaa iyo hadda dadkaasu dhibaatada ay sameynayeen laga difaacay ama la iska celiyey waxa weeyaan bay soomaaliya kamid tahay ummadda soomaaliyeedna diyaar bay u tahay laakiin arrinta aad sheegtay waa dhici kartaa inay saameyn ay ku yeelato oo dareenkaas waa jiraa waana loo tabaabushaysan yahay dareenkaas in sidii looga hortegi lahaa looga hortago waana garan kartaa argagixisada waxa weeye argagixiso caalami ah oo aan soomaaliya keliya aynan khuseynin laakiin nin kastaba ay khuseyso oo ama regionka ha noqoto ama adduunyanaha guud ahaan ha noqotee marka arrintaas waa laga feejigan yahay hadii dad muxuu ahaa nin dagaal u socda annaguna diyaar baan unahay inaan dagaal kaga hortagno oo dhulka isuma dhigayno waxaad ogsoon tahay rijimada laftigooda ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ama dawladda dhexe ha noqoto ama rijinka ha noqotee ayaga laftigooduna si fiican oo iskaashi aan leenahay iyaguna maxaan leenahay way ka digtoon yihiin arrinta iyada ah waana adduunkuna waa isweydaarsadaa waxyaabaha ku saabsan dhaqdhaqaaqa nimankaas nabadiidka guud ahaan wasiir aad baad umahadsan tahay haddii aynu dhinaca soomaaliya weliba aynu ku jiro su-aal kaa weydiiyo waxaa dhacda mararka qaarkood meelaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab marka ay rabaan ciidamada dawladdu ama kuwa amisom inay weeraraan in la arko ciidamadii ama maleeshiyaadkii al-shabaab oo iyagu subax waa horeba ka guuray oo meeshii cidla ah loo tago oo dhowr jeer dhacda arrintaasi ma dhici kartaa in loo qaato in ay sirtaba si hore usii ogaadaan in weerar kusoo socdo arrimahaasi ay dhacaan runtii waxa weeye markaad xaqiiqada siday tahay dadkan la khalday ama dadkan muxuu ahaayeto dhalinyaradan la khalday waxay ka yimid asalkooda dad badan walow ajnabihu ay jiraan haddana asal ahaan berdo dad soomaaliya weeye waxa hawlaha iyo shaqada iyo wax kastana ciidamada kamid ahna ummadda soomaaliyeed baa kamid ah ama dhalinyaro soomaaliyeed baa kamid ah marka lama dhihi karo mararka qaarkood ma bixin sirtu waa dhacaysaa sirtu inay baxdo maadaama dadku ay yihiin dad kula dhashay oo kula jooga oo aan kaa maqnayn oo aada ogsoon tahay xataa waaridkii ilmaha dhalay laftigoodii inay muxuu ahaa waaridkood ama wax loo adeegsaday inay waaridkood ama dilaan ama wax kasoo sheegaan ama ay ka hortagaan marka waa garan kartaa dadka falsafadaas ku shaqeynaya inuu waaridkiis dhibaateeyo inaysan helaynin xog ku saabsan muxuu ahaato dhaqdhaqaaqa meesha ka jira oo ayaga liddi ku ah markaas qofkii ku yiraahda been buu kuu sheegay xogtaasaan ka ilaalin karaa laakiin runtii waa la isku dayay inay markastaba xogta la xadado hase ahaatee waxa weye dadkaagii adiga kugu dhex jiray oo la qalday mar kastaba saad xogta uga qarsato aada iyo aad bay u adag tahay sideedaba iyadoo sirba sida loo ilaaliyo ay adag tahay haddana bulshadaada dhexooda markay arrimo saas oo kale ka jiraan
aad iyo aad bay u adagtahay controlkooda. marka inkastoo aan isku dayno inaan xadidno, haddana way dhacdaa in mataqaana ay helaan arrimaha dhaqdhaqaaqa ciidamada ku saabsan. laakiin meel kastaba ama ha ka tago ama yuusan tegina, macnaha waxa weeye haddii maanta ama berito ama saa dambe muxuu ahaa aan lagugu imaan meeshaada, maalmaha kamida waa lagugu imaan doonaa meesha, haddaad mar kastaba maslaxadii tahay ama ummadda Soomaaliyeed aada rabtid inaad dhibaatayso. marka waqti bay qaadanaysaa inuu qofku dhuundhuunto, laakiin aakhirta waxay noqon doontaa halkeebaad muxuu ahaato kusii dhoomin doontaa waqtiyada dhow oo ah ummadii ay usoo jeesatay inay muxuu ahaa wax dhisato, ammaankeenada ay ilaalsato. aad baad umahadsan tahay wasiir. muddooyinkii u dambeeyay waxaad ku mashquulsanaydeen barnaamij isku dhafka ciidamada ah oo aad wadeen. barnaamijkaasi hadda xaggeyni maraya, mase aad u aragteen inuu si fiican u hirgeli karo? horta waxa weeye in waad ogsoon tahay, inkastoo aad dhici karto inaad nin dhalinyaraha tahay, isku dhafka ciidamadu mar kastaba annaka waayo arag baan u leenahay. oo markii waqooyiga koonfurta ay ciidamada la isku dirahayay waaga xornimada lixdameeyadii, ciidamada Soomaaliyeed waa la isku dhafay. waxaa kaloo la isku dhafi jiray mar kastaba dawladii dhexe oo jiray in degmooyinka inta loo qaybiyo, markaas degmo walba tiro si hadba u kala badan yihiin laga soo qoro, halkaasna uu ka dhasho ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafa. maadaama annaka runtii societygeena ama bulshadeenu ay ku dhisan tahay dadku waxay ka gudbeen oo ah qabyaalada iyo wixii lamid ah, haddana si loo ilaaliyo maadaama aanan heerkaas gaarin, waxaa weligeed lagu dadaali jiray in ciidamada la isku dhafo. haddaan soo qaadno tan, waa bilownay inaan ciidamadii isku dhafno. waxaanu ka bilownay riijimada in la isku dhafdhafo. horta marka ugu horeysa regionka dhexdiisa ama gobolka dhexdiisa dad badan oo waxa weeye oo ah beelo kala gedisan ayuu ka kooban yahay. bal at least marka ugu horeysa beelahaas regionka laftiisa degan in isku dhafkii ciidanka laga sameeyo, kabacdina markii fursada la helo sidii awalba la sameyn jiray la isweydaarsiiyo ciidamada heer qaran ahaan. oo ninkii shalayto baydhabo ka shaqeynayay maanta uu muqdisho ka shaqeeyo, muqdisho kii ka shaqeynaya uu ka shaqeeyo meel kale ilaa muxuu ahaa boosaaso ka shaqeeyo. saasaan rajeynaynaa inaanu marka ugu horeysa isku dhafkaas waxaan u bilownay initiativekaas in aanu ku bilowno saas, kabacdina ilaa heer qaran, taasna ay ku abuuranto ciidan qaran oo leh weji qaran, oo markuu meesha soo istaago laga arkahayo inuu ka kooban yahay muxuu aha ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto uu ka kooban yahay, goboladeeda uu ka kooban yahay. taasna ay ku hesho kalsooni ummadda Soomaaliyeed uu ku hesho. markaan runtii kuu sheego, dadka Soomaaliyeed dad aad iyo aad u wanaagsan weeye markii ay helaan hogaamin fiican iyo daacadnimo iyo muxuu ahaayeeto in shaqadaas laftigooda loo idmaday lagu taageero oo gacan lagu siiyo. waxa weye qofka Soomaaliga aad iyo aad ayuu u fiican yahay. markaan runta muxuu aha inii sheego, dad badanna way ku amaanaan arrintaas, sababtoo ah dadkaas ciidamada qalabka sida oo maanta daryeelkii la rabay aysan wada helin, mushaarkii la rabay aysan wada helin, muxuu ahayto caruurtooda ama agoontii laftigooda daryeelkii la rabay ayna siin, haddana diyaar u ah wadankooda inay difaacaan, diyaar u ah naftooda inay u huraan. waxa weeye lama heli karo dadkaas oo kaleeto. marka inkastoo aan isku dayno inaan isku dhafno, haddana iyadoona xataa isku dhafnayn bay shaqada qaran si wanaagsan ay u gutaan. muddan ka dhex shaqeynaya weliba waqtiyadii ugu adkaa. qof kasta oo Soomaaliya oo halkaas muxuu ahaayeto nala shaqeynayay waxa weeye wuxuu u diyaar ahaa inuu naftiisa u huro qaaliga ah dalkiisa iyo dadkiisa, asagoon wax shuruuda ku xirin, mushaar ku xirin, daryeel kale ku xirin, laakiin
muxuu u diyaar ah oo keliya in wadankiisa difaaco. marka haddaan kuusoo koobo isku dhafkii waa bilownay, waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisana inuu noqdo mid miro dhal ah. haddii shacabka xukuumad ahaan waa isku daynay, shacabkuna inuu nagu kaalmeeyo ayaan rajaynaynaa. oo adinka aad kamid tihiin hadda intiina halkan iga dhegaysanaysa, waxaan filahayaa waxaad noo soo raadiseen waa sama jecelnimo iyo wanaag jeceyl iyo wadan jeceyl. marka taasna waxaan rajaynaynaa inaad ka dhigtaan, inaad ka dhabaysaan raadinta aad noo soo raadisaan, inaad xog wadanka ka heshaan ama fikrad ka dhiibataan. marka waxaan leeyahay aad umahadsantihiin. isku dhafaasna waana ka shaqeynaynaa, marka nagu taageera, gacanna nagu siiya. waa usoo noqon doontaa talada dadka aad maaragtay ujeedinayso. waxaan rabnaa bal inaan islu taagno dhinaca iyo gobolada dhexe. waxaa jira wasiir inaad hadda ka hor heshiis la gashay sunna wal jameeca kadib markii halkaa dagaal uu ka dhacay ama qalalaasho uu ka dhacay ciidamada dowladda federaalka iyo weliba sunna wal jameeca 5 maarisna aad heshiiska kala saxaateen. sida hadda la socono sunna wal jameeca waxa ay qabsatay Dhuusamareeb oo ah caasimada gobolka Galguduud, isla mar ahaantaana caasimad u noqon doonta maamulka hadda Cadaado laga dhisayo sida wareegtada ku sheegay madaxweynuhu. sunna wal jameeca waxa ay sheegtay in heshiiskii ay la gashay dowladda federaalka la fulin waayo. bal marka hore maxaa heshiiskaasi ku saabsanaa, maxaase ka hirgalay arrintaas ay sheeganayso sunna wal jameeca ay leedahay heshiiska la fulin waayo, maxaa ka jira? runtii hadda sunna wal jameeca anaku sunna wal jameeca waa kamid baan nahay. sunna wal jameeca marka magaca sunna wal jameeca waa ballaaran yahay markii la fiiriyo, laakiin sunna wal jameeca muxuu ahaa deganayd Gurceel markaas oo aan ugu tegay meesha oga conflictiga ka jira ayaga dhinacooda iyo muxuu ahaa dhinaca xukuumadda. markaas waanu heshiis baanu sameynay. heshiiskaasna wuxuu ahaa in mar kastaba la dhigo colaada laga dhaafo muxuu ahaa wadanka iyo isdilka, wax kastana lagu dhameeyo wadahadal. muddadii wadahadalkana waanu bilownay, laakiin sidii loogu talagalay markiiba uma hirgelin oo waxa weeye hadee duruufahaas jira ayay kamid tahay mararka qaarkood inaan waxyaabo badan isla markiiba hirgelin. laakiin heshiiskii weli sidii buu u taagnaa, dawladduna waa ka shaqeynaysay, laakiin ma ahayn in xabad la isu qaato oo waqtiga xabadda iyo lagu raadin jiray awood ama baawir lagu raadin jiray waa lasoo dhaafay. waxaa ummadda Soomaaliya u gudubtay waqtigii wax kastaba laga wadaabi jiray, lagana xaali jiray, lagana xaalo ayaa waqtigaas la soo gaaray si ummadda Soomaaliya loo ilaaliyo wadajirkeeda. laakiin haddii la isu magacaabo ama ahlu sunna la isu magacaabo ama dhalinyaradan hadda dhalinyarada isku magacawday ayaguna magac isu bixisay ha ahaadeen ama wax qabiil ha noqoto, waxay noqonaysaa dhib bay noqonaysaa. taas in laga gudbay baan u malaynaya ummadda Soomaaliyana aysan muxuu ahaa garab ku siinaynin in inta qori la qaato la yiraahdo xoog baan wax ku haysanaya, xoog baan wax ku maraqsanaya. ummadda Soomaaliyeed midaas ma taageerayso, adduunka caalamkana ma taageerayo in waqtigan qoryo iyo hub iyo dhul baan qabsaday iyo dawlad baan kasoo horjeedaa iyo waxay ila tahay aniga waqtigaas waqti dhumis weeye. laakiin dawladdu mar kastaba inay la xaasho shacabkeeda ama dadkeeda magac kastaba markaas ha sheegtee diyaar bay u tahay, weliba tiibay dawladdu ku taagan tahay. runtii personally waan isku dayay ama waa isku dayaa weli waana wadaa arrinta ayaga mar kastaba in laga miro dhaliyo. laakiin haddii inta lagu muxuu ayadoo arrintii socoto la yiraahdo tallaabaan qaadaynaa ama action baan qaadaynaa ama waxaas haddaan loo sameyn ama waxaas haddaan la sameynin, waa garan kartaa consequenceda ama cirib xumada ama cawaaqib xumada ka imaan karta meeshaas. marka runtii anigu midaas kuma taageerayo, gacanna kuma siinayo, laakiin waxaan ku taageerayaa gacanna ku siinayaa xukuumadduna ay diyaar u tahay in wax kastaba lagu dhameeyo wadahadal. wixii muxuu ahaa la isku afgaran waayana la iskala hadlo meel kastaba ha noqotee. marka arrintaas heshiiskaas waa jiray, waana wadnaa weli waana haynaa
tilaabadeena waa ku dhex jirnaa laakiin hadday iyagii la noqotay la tahay in tilaabadaas ay qaadaan dawladduna wixii ku saabsan arrintaas waxaynu kusoo dhaweyneysaa in wax kastaba wadahadal lagu dhameeyo oo aan mar kastaba la qaadin gacanka hadal ay noqonin oo ah midda soomaalida ay caadada ka dhigatay ilaa iyo haddana wadankeeda burburka u keenay in gacanta laga hadlo intii laga hadli lahaa muxuu ahaa wadahadal ama wadaxaajood caqliguna shaqayn lahaa marka runtii aada iyo aad baan shaksiyan aniga uga xumahay maadaama arrinta aniga marka hore dadka guri ceel joogay markaas aniga aan la bilaabay wadahadalka welina dawladda aan maxaa ra-iisul wasaaruhu uu diyaar u ahaa madaxweynuhu diyaar u ahaa arrintaasna mar kastaba laga wada hadlayay in meel isla dhigo marka ma garan karo waxa ku kalifay inay yiraahdo meel baan qabsanaynaa ama dad hal islaya xabad lasoo qaado waktigan oo la dhisayo Soomaaliya oo dhan in la rabo in laga dhiso dawlad federaala oo waxtar wasiir aad baad umahadsan tahay sidaan la socona Soomaaliya waxaa saaran cunaqabatayn hubka ayaa saaraa si ciidamada iyo awoodda ciidan loo dhiso ma socdaa barnaamij in hubka cunaqabataynta Soomaaliya laga qaado muddo badan ayaa ummadda Soomaaliya muxuu ahaay xukuumadda Soomaaliya ama dawladda Soomaaliyeed isku dayeysay in cunaqabataynta laga qaado muxuu ahaay Soomaaliya marka runtii dawladda Soomaaliya in way isku dayeysaa wayna ilaa intaasna waxay u arkaysay in xukuumad ahaan walow xataa markii laga soo gudbay xataa ku meel gaarnimadii in weli la yiraahdo waxayna saaran cunaqabataynta waxay u arkaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadduba in arrintaas aysan ahayn arrin xaqa oo dawlad ama ummad aan ammaankeeda ilaalin karin haddana uu ku furan yahay muxuu ahaato dadkaasi nabaddiidka ah in haddana la yiraahdo muxuu ahaato cunaqabatayn haween baa ku saaran waqti way jirtay lalahaa oo lagu bilaabay markii ay jirtay dagaalada sokeeye waa wax la garan karo laakiin dawlad ahaan in la yiraahdo muxuu ahaato cunaqabatayn baa ku saaran haddana iyadoo adoo dagaal ku jira marka waxay la mid tahay adoo gacmaha laga xirxiro la yiri oo kaleeto markaasna dagaal in qof gacmo ka xirxiranna waad garan kartaa dagaal ilaa intuu gaari karo ama intuu samayn karo dawladdu aad iyo aad bay ugu dadaaleysaa waana isku dayeysaa inay ku qanciso dadka daneeya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan qaramada midoobay inay arrintaas ay tahay arrin aan ku habboonayn qaran madax banaan in la yiraahdo amaankaaga waxaad ku ilaalsan lahayd muxuu ahaato laguma suurtagelinayo waad ogsoontahay ummadda Soomaaliyeed maanta cidna kuma duuleyso ninna kuma duuleyso meel kale oo hub u arursanaysana ma jirto waxa weeye ammaankeedii gudaha say u ilaalsato awgeed ayay u raadinaysaa muxuu ahaato waxa ay ammaankeeda ku xaqiijin lahayd marka arrintaas dawladda Soomaaliyeed kama garaabso laakiin waan isku daynaa inaan ku qancino muxuu ahaato dawladaha daneeya ummadda Soomaaliya gaar ahaan qaramada midoobay inay arrintaas ka fiirsato aad ayaad umahadsan tahay wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya General Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo isagoo Washington jooga khadka telefoonka golaha IDA si toos ah ugu jiray kumanaan qof oo Soomaaliya ayaa ku dhageysanaya haddii 30 second 20 second baan ku siinayaa ugu dambeyntii wixii aad dadka aad ku oran lahayd inkastoo aad sheegtay waxyaalihii ugu dambeeyay wasiir aad kaga tagi lahayd dadka Soomaaliyeed ku soo dhawow aad iyo aad baad umahadsantihiin horta fursadan aad isiiseen intiina dhegeysanaysaa waqtiga iyo xiriiriyaashaba aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaan in kula dardaarmaa ama in dhihi lahaa wadanku waa wadankiini qof aad ku hadlaysaana ma jirto waxaan rajaynaynaa anaku markaan hadda anaka joogna goobtii inaad gacan nagu siisaan adinka cod iyo calafba waxaad heli kartaan inaad ku dadaashaan ama ku taageertaan wadankiini ama dalkiini
aada iyo aad baan ugu hami weynahay sida daato sooyaalba uu sheegay inaad qeyb weyn ka qaadateen. haddana weli waxaan isleenahay war intaas ka badan baad kasii qaadan karteen ayaan isleenahay. ma ahan inaanu leenahay waxba uma qabataan, waxba uma siisaan dadka dibadda ku nool. marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba in leeyahay dalkiina usoo gurmada. ma ahan inaad xataa inaad lugta soo dhigto keliya maahane, codkiinu meesha ha laga maqlo, codkiina dhalinyarada la duufsanayo uu sheega, codkiina waxaad nagu taageertaan haddaan siyaasad ahaan xataa aan meela ka dhacdhacno inaad tirahdaan war siyaasadiina toosiya oo meeshaas ka toosiya. waxaan u baahnay cod oo daacad ah, ma ahan cod mataqaanaa fidnaa, laakiin codkiina oo daacad ah oo wadaninimo ay ku jirto, islaamnimo ay ku jirto, sharafta ay ku jirto. intaas ayaan u baahnay inaad nagu taageertaan. meel kastoo aad joogtaan magaca soomaaliyeed baa wadataan. annaka diyaar waxaan u nahay wixii khalada la yidhaahdo ina la saxaan diyaar u nahay, oo aan wixii aan qaban karo nala ka saxo. fikradiinaanu diyaar u nahay. waxaanu diyaar u nahay meel kasta oo aad tirahdeen war waxaas baa jire iyo meelahaas ma martaan xag siyaasadeed iyo xag dhaqaalada, inaanu ra'yigeena iyo fikradiina qaadano. maadaama annaka gudaha joogna runtii markaan idiin sheegno intaan fakeri karo ama intaan mataqaanaa qorshe samayn karo aada iyo aad u mararka qaarkood u adag yahay duruufaha aan ku jirno awgeed. laakiin waxaan isleenahay maskax aysan saarayn, barashar uusan saarayn ama culays uusan saarayn, walow aan ogahay in banaanku laftigiisa uusan dhib yarayn, haddana waxaan isleeyahay fikrad saliima hay dhiiban karaan oo ka duwan kuwa gudaha ku jira. sababta waxa weeye qiimaha qarannimo ama umadnimo ayaad garan kartaan. waxaan aada iyo aada ina kugu gugaabin lahayn, soona dhaweyneynaa in aad runtii ka qayb qaadataan. fursaddaana siiseen aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa inaan hadalka muxuu ahaato aad tihiin nin lagu seexdo ha seexan. macnaha nin kastoo wadanka u dhashay ama kasoo jeeda ama waalidkiis kasoo jeedo waxa weeye mar kastaba waa Soomaali. waxaana khatar ku jirta runtii haddaan runta idiin sheego muxuu ahaa cunsurka Soomaaliga laftigiisa inuuba meesha ku yaraado ay dhici karto haddaan loo istaagin oo qabkii ama muxuu ahaato dadka uusan dib usoo noolaanin, sharaftiina aysan dib usoo noolaanin. adinkaana ka qayb qaadan kara, adinkaana saldhig u ah. marka aada iyo aad baad umahadsanteen mar labaad iyo mar saddexaadba. marar badan baanu kulmi doonaa haddii fursad aan u helno ilaahay idankiisa. guul baa inii rajeynayaa idinkuna inaad guulaysataan, annakana aad gacana soo siin doontaan. aad baa umahadsantiin. aad baad umahadsan tahay. kaas waxa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya General Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo soo khata telefoonka golaha IDA kumanaalada oo Soomaaliyeed oo qayb oo xubna ka golaha uga wadameeyay golaha. aad baad umahadsan tahay General, waqtigaaga qaaliga aan siisay waa kaaga mahadnaqaynaa. aad baad umahadsantiin. habeen wanaagsan.